Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka Baro ICT IT. waa tii casharadii aan wadnay halkaas ayaan kasii wadi doonaa. Maanta hadduu ila yiraahdo waxaan bilaabi doonaa maado cusub oo loo yaqaan web development, laakiin waa maado weyn maaragtay aad u ballaaran runtii. laakiin waxaan ka bilaabi doonaa maaragtay basic oo maaragtay qaabka loo sameeyo pageska oo maaragtay HTML loo yaqaano. maaragtay programka HTML ka ayaan bilaabi doonaa. waxaan u baahan doonaa maaragtay CSS oo maaragtay asagana sidoo kale aan isticmaali doono. marka si toos aan u galno maaragtay barnaamijka maaragtay HTML ka qaabka loo sameeyo. HTML ka waxaa lagu sameeyaa pageka maaragtay basiga ah oo maaragtay ayaad ku sameyn kartaa page ayaa ku sameyn kartaa. waana meesha ugu horeysa aad ka bilaabayso markii maaragtay web development aad baranayso oo maaragtay qaybo badan kala ah. laakiin hadda HTML ayaan bilaabi doonaa oo maaragtay CSS kana waan maaragtay isticmaali doonaa. marka laba qayb ayaad u isticmaali kartaa notepad maaragtay uu ku yimaado computerkaas ku yimaada ayaad ka isticmaali kartaa ama node++. hadda waxaa marka qofkas waxaan kula talin lahaa maaragtay notepad++ inuu isticmaalo maadaama uu free yahay haddana maaragtay uu notepad ka caadiga uu waxyaalo badan dheer yahay. marka notepad kana waa isticmaali kartaa oo notepad ka waa sida maaragtay ani hadda finish uu ii yahay luqadda finishka laakiin most hadda maaragtay waa sidaan. marka maaragtay waxyaalo badan ma lahan oo ujeedaa laakiin node++ markaad soo degsato oo website-kooda node++.com aad ku maaragtay soo dejiskiisa waa fudud yahay halkaas ayaa kasoo degsanaysaa. marka notepad++ aan kicinaa waa ujeedaa waxyaalo badan ayuu features badan ayuu leeyahay waxyaalo badan oo dheeraad badan ayuu leeyahay oo maaragtay marka notepad++ kaas inaad isticmaasho ayaa fiican. marka casharkeena ugu horeeya ayaan bilaabi doonaa hadduu ila yiraahdo. waxyaalaha maaragtay basiga ah oo maaragtay HTML ka laga rabo inaad barato waxa waaye tags waxa loo yaqaano maaragtay waa calaamadan tag ayaa furaysaa oo waxaa ku qoraysaa HTML waad ku xiraysaa qaabka loo xirana waa isla calaamadaas ayaad ku xiraysaa. kadibna waxaan u baahannahay head ayaan u baahannahay waa furaysaa tagga haddana waa iska xirayaa si aan toos ugu qoro. waxaad u baahan tahay waxa loo yaqaano headka kadibna waxaan u baahanahay waxa loo yaqaano tagiska noo xir kadibna title ayaa u baahan tahay oo website-ka title-kiisa camal tusaale ahaan qaybta title ayaa u baahannahay. title-ka waxaan ka dhigaynaa ha noolaato tusaale ahaan. kadibna maaragtay page-ka ayaan ha noolaato page camal website web page. kadibna taggi ayaan furaynaa oo xiraynaa marka waa in calaamadaas aad isticmaashaa slashka kadibna title ayaad furaysaa kadibna waad xiraysaa kan tag. marka intaas waxaa hadda maaragtay headki naftiisa headki aan soo furnay waa inaan xirnaa. xagga uu ka furan yahay halkan aad ka xiraysaa head ayaa leedahay kadibna waa xiraysaa. headki waa noo xiran yahay HTML kana gadaal ayaan ka xiri doonaa. marka ujeedada waa inaad fahantaa maaragtay wax kasto markaad furtid waa inaad u xirmaa. headka hadda waa noo xiran yahay body ayaan furi doonaa. body
kadibna waxaan ku qori doonaa maaragtay tusaale ahaan Soomaaliya. Marka waxaa maaragtay tag ayaa furaysaa, kadibna tagga ayaad h1 ayaad leedahay, waa title-ka ugu horeeyo. waxaan baran doonaa qaybaha title-ka maaragtay u kala weyn yihiin aad isticmaali karto ayaan baran doonaa. waan xiraynaa marka tagga, kadibna waxaan Soomaaliya hanolaato ayaan qoraynaa tusaale ahaan, kadibna waan xiraynaa taggan ayaa xiri doonaa close. taggi waa xirnay, marka kadibna enter ayaan leenahay. waxaa noo fiican kan inaan soo koobiyeysano si aan markaas inaan qorno aan ugu maarano. copy ayaan leenahay, control v, control c, control v, control v, kadibna v. kan tusaale ahaan one noo yahay, kan head maaragtay two ayaan ka dhigaynaa, haddana two gaan xiraynaa. halkan 1 2 ayaan xirnay, 3 ayaan furaynaa, 3 ayaan furnay, 3 ayaan xirnay, 4 ayaan furnay, 4 ayaan xirnay taggi. marka wuxuu noo sheegayaa maaragtay hadda markaan page-keena aan run garayno waxaan arkaynaa Soomaaliya oo weyn kasii yar kasii weyn kasii yar, marka saas camal inuu maaragtay isku xijinayo. marka body-geena xiraynaa, waxaad xirayso waa inaad saas samaysaa, kadibna html kaan xiri doonaa, kadibna barnaamijkeena ayaan run garayn doonaa haddii la yiraahdo html, kadibna waa xir, kadibna waa save. sorry meeshaan ayaan qaladnay, waa inaan saxnaa maaragtay h1 ayaan leenahay, macnaha h1 maadaama noo aha halkaas. marka waxaan ka xiraynaa bilow ayaan xiraynaa, marka halkaas ayaad ka xiraysaa. waka kana noo soo koobiyey sidoo kale. marka halkan waa 2 kana waa saas. marka halkan joogto oo maaragtay aad dhamayso tusaalaan kanaan kicinina waxaad leedahay save, kadib marka halkan joogtid oo aad magaca u baxsato barasho html wanaad ka dhigta, haddii aad halaan ku save garayso ku shaqeynayo. marka waa in aad raacisaa html kadib ku shaqeynayo. marka failka meesha aan ku save garaysan aan tagno, barasho waa ka double click aan ku leenahay, waa ka title-ka aan baxsanay oo ahaa hanolaato web page. title maaragtay header 1-ka oo maaragtay aan kan koowaad h1-ka saas uu noqday, h2-ga, h3-ga, h4-ka, kadibna
5 iyo 6 ayaan ku diri doonaa farqiga markaas oo sii fahmaysa oo sii yaraanayo copy aan dhahna kan kadibna aan dhigano halkan paste mid kale paste kan 5 aan u bixino 5 kadibna kan 5 kan 6 kan sidoo kale 6 marka hadda aan save gareyno haddana meeshan aan ku laabano waa farqiga u dhexeeya waa sii weynana waa aragtay waa kii weynaa 1 2 3 4 5 6 marka intaas ayaan ku barana casharkan casharka xiga kan waa sii dhamaystirayna cashar kale aan ku darayna paragraph ayaan ku darayna paragraphka qaabka loo sameeyo marka waxaad furanaysaa tagga kadibna beeda saas aad dooranaysaa kadibna waad xiraysaa paragraph saas kugu furan yahay marka halkan ayaa paragraph kusoo dhigan doontaa meeshan aan tagno kadibna aan tusaale ahaan Soomaali ayaan copy kasoo dhigi doonaa maaragtay tusaale ahaan kan ayaa soo qaadanayna qoraal aan rabnaa maaragtay mid aan iska soo qaadan doonaa af Soomaaliga ka dhigana intaan baan iska soo qaadana maaragtay intaan aan iska soo qaadana copy aan soo dhigana paragraph le ka rabnaa ujeedada copy kadibna halkaas ayaan dhigan doonaa waa ugu dheeraada laakiin waxaan sameynaynaa maaragtay waxaan kusii baran doonaa maaragtay spaceka ama maaragtay markaan line cusub aan dhiganayno ayaan ku baranaynaa line cusub markaas waxaa sameynaysaa tusaale ahaan intaan ayaan line cusub ka dhigaynaa ilaa dhibicdaas ayaan ka dhigi doonaa maaragtay line cusub waxaan leenahay br oo weynta maaragtay tan sidaan saas br kadibna waan xireynaa ilaa halaas ama save noo dhigtay okay br aan dhahnay waa save gareynaynaa save gareysan yahay kadibna meeshaan tegaynaa aan kacsan yahay kan aan tagno waa ka markay paragraphkan soo dhigno waatana kenyana maaragtay waa tii aan br siinay ilaa maaragtay dhibicda hadda ila xasuusto maaragtay markaan halkan br gelinay galbeedkana kenya ayaa ka xigta maaragtay waa tii aan gelinay hadda br kale ayaan gelin doonaa oo maaragtay tusaale ahaan intaan gelinaa halkan 1961 halkaas ayaan br gelinaynaa 61 inoo tag 61 br kadibna save ayaan dhahnaa markaan tagnana halkaas
halkan markaan tagno aan hadda markaan enter dhahno oo refresh aan dhahno BR 90 halkaas ay imaanaysaa. Marka saas ayaan ku baranaynaa. Waxaa inoogu xiga casharka xiga tusaale ahaan waxaan ku dari karnaa oo intaan casharka kala gaarin tusaalahan picture inaan soo qaadno tusaalahan waxaan soo qaadanaynaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ayaan save gareynaynaa sawirkiisa, kadibna sawirka waxaan ku save gareynaynaa page-keena meesha uu inoo yaalo ayaan ku save gareyn doonaa, haddii kale ma kusoo bandhigayo. Kadibna waxaan tegi doonaa code-keena, waxaan ku qori doonaa magaca page picture-ka waa inaad xasuustaa master. Okay, marka waxaan ka bilaabeynaa image go in there CRC equal ayaan leenahay quotation mark sawirka magaciisa wuxuu ahaa la socotaan filayaa master kadibna calaamadaas president. la socotay kadibna dot wuxuu yahay stationkiisa waa BH waxaan filayaa waxaan ka dhignay PNG. kadibna waxaad samayn kartaa hide ayaad u yeeli kartaa, laakiin inta aan ku save gareyno horta aan aragno save kadibna refresh meeshii waa noo soo bandhigi waaya, laakiin waxaa waaye waxaa naga khaldan. marka waa inaan saxdaa waxaa naga khaldan, waxaan soo xirin PHP-gii aan soo xirin haddaan xasuustay ma xasuusta kan ma soo xirin aan filaya. waxaa naga qaldanaa waxaa naga qaldan PNG-ga aan raacsanay PNG-ga aan raacsanay sawirkaan soo gelinay GPG waaye. marka GPG haddaan ka dhigno wuu noo shaqeynaya. marka waa inaa markas stationka aad iska fiirisaa waxa uu ku dhamaado qaybtiisa, waa inaad iska fiirisaa markasto. marka meeshan haddaan tagno hadda aan kicino wuu noo soo kacaya waa aad u weyn yahay, waa yareyneynaa. marka waxaan tegaynaa halkaas waxaan ku qori doonaa waxaan sii raacsiinayna dhererka iyo balaca iyo wax dhan aan raacsiin doonaa si uu height-ka ayaan ku hormarayna equal waxaan leenahay tusaale ahaan 500 pixel kadibna waan xireynaa. kadibna waxaan tegi doonaa widthkiisa ayaan bedeli doonaa. widthkiisa wuxuu noqon doonaa equal ayaan leenahay, kadibna waxaan dooraneynaa 500 asigana isla kadibna save dheh, kadibna page-keena tag ama inta nagu furan yahay kadibna refresh dheh. waxaan ku tegaynaa meesha ku laabaneynaa
weli waxaan 500 meeshaan fiiri wax yar adaa ka tagto wuu ka khaldaa meeshii maadaama aan quotationka in aan halkan ka xirna ahayd wuu noo banaan yahay saas daraadeed ma soo bandhigayo marka quotationka waa inaad xirtaa wax yar hadduu ka maqan yahay ma ku shaqeynaya koodhka waa inaad la socotaa markasto si toos ayaan haddana maaragtay refresh u dhahaynaa sawirka waa kaa madaxweynaha sawirkiisa waa kaa waan soo qaadnay marka casharkeena maanta halkan ayaan ku maaragtay kusoo koobi doonaa casharka labaad ee بريتو إن شاء الله نلصعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.